بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب مقام المحمود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ولا ليال ما أنت وحاندين سو قدبنا برنامج آد قيمة بدن. برنامج كاسي وحاو كساب سنيهي noocyada uu u qaybsamo qalbiga. sida aan ognahay, qalbiga waa boqorka xubnaha. qalbiga haddii uu wanaagsanaado, xubnaha way wanaagsanaanayaan. qalbiga haddii uu xumaadana, xubnahana way xumaanayaan. sida aan in badan ka warqabno, allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ina siiyey xubno aad u fara badan. xubnahaasi faraha badan ee la ina siiyey waxaa ugu muhiimsan xubinka la yidhaahdo qalbiga. haddaba qalbiga guud ahaan waxa uu u qaybsamaa laba qaybood: qalbi saliim ah oo ka nabadgalay wax kastoo xumaan ah oo allah subxaanahu wa tacaala uu xarrimay, iyo qalbi mariid ah oo ku aafaysan wax kastoo xumaan ah alle subxaanahu wa tacaala uu xarrimay. mid kastana si gooni ah ayaan u qeexi doonnaa oo u sharxi doonnaa insha allahu tacaala. haddii aan u soo laabanno qaybta koowaad ee ka mid ah labada qaybood ee uu u qaybsamo qalbiga, qaybta koowaad waa alqalbu asaliim. qalbiga saliimka ah waa midka nadiifka ka ah ee ka fayow wax kastoo xumaan ah, ka fayow dhammaan noocyada macaasida ah, teeda yar iyo teeda weyn, teeda muuqata iyo teeda qarsoon. maxaa yeelay macaasida waxa ay leedahay mugdi iyo dhib yuusanba dareemin caasiga ku kacaya falkaasi macaasida ah. qalbiga haddii ay ku badato macaasida, waxa uu noqonayaa mid dhagool ah oo aan khayrka maqlin, oo indhool ah oo khayrka arkin. sidaa daraaddeed baa alle subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aanka kariimka ku leeyahay suuradda 83 aayaddeedii 14: kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun. qofka yacni addoonka haddii uu dembi galo, qalbigiisa waxaa lagu dhejinayaa bar amaba calaamad madow. haddii dunuubtiisu badatuna, qalbigiisa waxa uu noqonayaa mid wada madow ah. tusaale, muraayadda aynu isku fiirinno mar waliba waa aynu tirtirnaa oo aynu nadiifinnaa. haddii ay wasakhowdo oo aynaan la nadiifinin, dabcan ma awoodno inaynu isku fiirinno. ayib, qalbiguna waa sida muraayadda oo kale. haddii ay dunuubtu ku badato, taacaadkuna ku yaraadaan, waxaa xaqiiqo ah qalbigaasi inuu noqonayo mid khayrka iyo sharta aan kala aqoon, laa khayran yafcaluh walaa sharan yatrukuh. qofka marka waxaa laga rabaa qalbigiisa inuu noqdo mid jilicsan. aynu su'aal isweydiinne: mataa wa kayfa yakuunu alqalbu layina? qalbigu sidee buu ku noqdaa mid jilicsan? goormase uu noqdaa mid jilicsan? waxa uu jilcadaa qalbiga haddii uusan qalalnayn. waa su'aal kale. maxaa keenaya qalbiga inuusan qalalnayn? waxaa keenaya qalbiga inuusan qalalnayn inuu yahay mid rabbigiisa ku xihan oo cilaaqa la leh, qur'aan akhriskiisu badan yahay, khushuuciisu badan yahay, jecel yahay dhegaysiga kalaamka alleh jalla jalaaluh wa caduma sultaanuh, asagoo ku tadabburaya oo fiirfiirinaya macnihiisa. alle subxaanahu wa tacaala waxa uu nacay oo uu xumeeyey kuwa aan qalbigoodii khushuucaynin marka ay dhegaysanayaan kalaamkiisa, yacni qur'aanka kariimka ah. alle subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aanka kariimka ah ku leeyahay suuratu alxadiid aayaddeedii 16: alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah wamaa nazala min alxaq walaa yakunuu kaaladiina uutuu lkitaaba min qabl
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم sidoo kale waxaa kuu kaalmaynaya inuu qalbigaagu noqdo mid jilicsan masaakiinta iyo agoonta fuqarada dadka liita inaad jeclaatid ihsaan u samaysid. Abu Hurayra radiyallahu anhu waxa uu soo warinayaa nin ayaa waxa uu yimid nabiga markaasaa ninkii waxa uu yiri rasuulallah qalbigaygu waa qalbi qaasi ah waa qalbi aan jilicsanayn rasuulallah ii sheeg wax qalbigayga ii jilcinaya markaasaa nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu yiri in ahbabta an yalina qalbaka fa at'im al masakin wamsah ra's al yatim haddii aad jeceshahay qalbigaaga inuu kuu jilcado masaakiinta quudi agoontana madaxa u salaax aw kama qaala calayhi salaatu wassalaam. xadiidkaas waxaa soo wariyay al-imaamu axmed fi lmusnad mujalladka labaad safxada 263 wadacafa isnaaduhu asheekh axmed shaakir calayhim arraxma ajmaciin. qaybta labaad ee uu qaybsamo qalbiga waa qalbi mariid. markaan soo ogaanay qalbiga saliimka ah waxaynu u baahannahay in aynu ogaanno qalbiga mariidka ah ee xanuunsan. xanuunka ugu weyn ee qalbiga ku dhaca waa inuu addoonku aqoonsan waayo rabbigii abuurtay iyo sababta uu abuurtay. sababta labaad ee keenaysa qalbigu inuu noqdo mid xanuunsan addoonka in lagu imtixaamo dunuubta noocyadeedii kala duwan kuwa saqaa'irta ah ee yaryar iyo kuwa kabaa'irta ah ee waaweyn. waxaa dhici karta qofka inuu sameeyo ficil dembi ah oo uu yaraysanayo dembigaasina uu yahay midkii uu ku halaagsami lahaa oo uu ku khasaari lahaa khayr adduun iyo khayr aakhirana uu ku wayn lahaa. sidaa daraaddeed allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay wataxsabuunahu hayina wahuwa cinda allahi cadiim. waxaad u malaynaysaan inuu fudud yahay dembi fudud yahay idinka binisbati ilaykum marka idinka laydin fiirayaan wahuwa cinda allahi cadiim ilaahay agtiisa waa mid ku weyn. dunuubta addoonka waxa ay ka fogaysaa rabbigiisa maxaa yeelay kuma habboona hor istaagga alle subxaanahu wa tacaala iyo u dhowaanshihiisa ilaa qalbi daahir ah mooye qalbi lagu daahiriyey tawxiidka salaada soonka qur'aan akhriska iyo dhammaan noocyada cibaadaadka allah subxaanahu wa tacaala u amray. qalbi laga daahiriyey laga nadiifiyey wax kastoo xumaan ah shirkiga jaahilnimada cibaado la'aanta daawashada filimaanta xunxun dhagaysiga heesaha iyo wax walboo qurun ah shaytaanku uu waxyooday asxaabtiisa. waxaa xaqiiqo ah qalbigaasi xun ee lagu wasakheeyey shaytaanka waxyigiisa iyo xumaanta uu faray inuu rabbigiisa u dhowaanaynin qalbigaasi walow shibra hal taakab ha noqotee. ikhwaani fillaah sidaan ognahay quluubtu asaalatan yacni asal ahaan waa daahir oo nadiif ah wey ma ittasakhat ilaa bidunuub wamaa maridat ilaa biha kuma wasakhowdo ilaa dunuubta mooye wax xanuunkeedana waa dunuub fara badatay weeyaan. alimaam ibn rajab alxambali kitaabkiisa ama risaaladiisa kalimatu likhlaas safxada 48 wuxuu ku leeyahay yaa qawmi quluubukum calaa usuuli الطahaara wainamaa asaabahaa rashaashun min najaasati الdunuub farushuu calayha qaliila min dumuuci اlcayn. quluubtiina asal ahaan waa tahaaro buu yidhi imaamku quluubtiina waxaa asiibay dunuubtii aad samayseen najaasadeeda dhibcaheeda ayaa soo gaaray buu yidhi farushuu calayha waxaad ku rushaysaan qaliilan min dumuuci alcayn wax ka mida isha ilinteeda wax ka mida ku rusheeya buu leeyahay imaamka. cudurrada ku dhaca jirka waxa ay dunuubta haddii qofka uu ku sabro kana ajar xisaabsada weeyaan. saxiixu muslim waxaa ku yaalla mujalladka afraad safxada 1993 jaabir radiyallahu anhu ayaa nebigu waxa uu ka soo warinayaa nebiga inuu yidhi alxuma tudhibu alkhataaya kama yudhibu alkiiru alkhabath. qandhada ama xumadda
waxa ay tagsiisaa oo ay baabi'isaa dunuubta ibni aadamka uu sameeyo kamaa yudhibu alkiiru alkhabath sida buufinka uu u baabi'iyo xumaanta iyo wasaqda saaran birta oo kama qaala calayhi asalaatu wassalaam shukran aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal dhegaysigiinnii barnaamijkan aadka u qiimaha badan allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu khayrka ina waafajiyo walaal ha ku ekaynin khayrka nafsadaada oo keliya balse gaarsii inta aad awoodid oo walaalahaaga ah adoo ku camalfalaya qowlkii allah subxaanahu wa tacaala wadakir faina adikra tanfacu almu'miniin waanada waxay anfacaysaa dadka mu'miniinta ah iyo xadiidkii nebiga calayhi asalaatu wassalaam uu nebigu yidhi man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacilih khayr ninkii dadka tusa waxa uu la mid yahay khayrkaasi ninkii sameeyey ajirkiisa oo kale uu leeyahay ninkaas oo kama qaala calayhi asalaatu wassalaam اللهم من نشر هذا المقطع فاجعله شريكا لنا في الأجر واجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقه من حيث لا يحتسب واجمع لنا خير الدنيا والآخرة لنا وللمسلمين أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين